marmarka qaarkood waxaad u baahan tahay inaad table-kaaga u samayso waxa la column span iyo row span waa isweydiinaysaa waxa ay yihiin labadani laakiin marmarka qaarkood marka table-kaaga doonaysa inaad sidan oo kale ka dhigtid intan hore ayaynu usoo marnay laakiin halkaa row ee qoraalka keligiisa waxaad arkaysaa inuu ku fadhiyo inay ku fadhin lahaayeen 3 row markaasoo kale waxaad isticmaali kartaa waxa la dhaho column span ayaa isticmaali kartaa haddaynu tusaalaheeda eegno table-keenii halkan ayuu marayaa waxaynu kusoo daraynaa hal row oo kale ayaynu isticmaalaynaa waxaynu kusoo daraynaa hal row oo kale ayaynu kusoo daraynaa kabacdina waynu xidhaynaa cashirkeeni hore ayuu cashirka la xidhiidhaa waxaynu sameynaa qof afraad ama qof afraad balan badan hal td ayaynu sameynaynaa waynu xidhaynaa waxaan dhahaynaa nagala soo xidhiidh si cashirkii hore waxaystid href wax la dhaho oo website ku xidhan yahay our site intaas ayaynu sameynaynaa haddaynu keenii hore refresh garaysano waxaad aragtaa nagala soo xidhiidh inay meeshii sidaa ugu ballaaratay laakiin aysan xaggan gaadhin laakiin waxaan rabnaa inuu line-kaas oo dhan nagala soo xidhiidh u gaadho waxaanu ku daraynaa symbol waxa la dhaho column span ayaynu ku daraynaa waxaanu leenahay column span ha noqdo rowgii uu ku fadhiyo laba kale sii raaci soo haddaynu refresh garayno maxaa dhacaya wuxuu ku fadhiyaa labo soo haddaynu taa kale rabnay inuu gaadhsiino waa inaynu 3 cell oo kale aynu sameynaa markaa haddeer ayuu wuxuu ku noqonayaa fit ayuu ku noqonayaa wuxuu noqonayaa hal row oo dheeraada ayuu noqonayaa haddaad doontid qoraalka waxaad dhigi kartaa dhexda oo alignment ayaa u sameyn kartaa align center ayaa dhahi kartaa waan filayaa ama middleba kabacdina qoraalka waxa laga inuu dhexda tago waa kan our site nagala soo xidhiidh mararka qaarkood oo kale waxaad u baahan kartaa sidan oo kale inaad ka dhigtid qoraalkaaga halkan inaad ku cayintid intaan laba row oo ku fadhiya inay ku fadhin lahayn 4 column oo kale markaasna waxaa isticmaalaysaa waxa la dhaho row span haddaynu tusaalaha ka eegno halkan waxaynu ku sameynaynaa hal row oo kale ayaynu ku sameynaynaa halkan row waxaa la dhahaa th weeye waxaa la dhahaa meel maran waynu xidhaynaa waxaad ujeedaa markaan refresh garayno meel maran inay hadda sidan oo kale tahay lakin waxaa rabtaa midan oo kale halkan waa rabtaa inay xidhan tahay laakiin inaad gaadhsid ba rabtaa halkan oo kale ilaa halkan marka 1 2 3 4 ayaynu kusoo daraynaa 5 ayaynu kusoo daraynaa row span waxaan leenahay row span hala mid noqdo 5 cell ayuu guurayaa okay wuxuu ku fadhiyaa meel maran wuxuu ku fadhiyaa halkan ama tusaale ahaanba waxaad sameyn kartaa waxa la dhaho waxaad dhahaysaa waxaa ku fadhidaa 2 inta kalena mid kale ayaad ku fadhiisan kartaa row kale ayaad ku fadhiisan kartaa xaggana ta kalena waxaad kasii bilaabaysaa testigan ayaa kusoo dari kartaa td kale meel kabacdina waxaad dhahi kartaa row span 2 ha noqdo soo halkasa meel kale oo isna halkan yimi fartan madmadooga waad garanaysaan waa th oo header ayuu ahaa xagga sare tanna waxaad dhahaysaa maadaama taasi 2 noqotay sare tana 3 ka dhig 5 ayaynu buuxinaynaa wow bis markaa wakaa sidan oo kale ayaa table-kaaga waxaad doonto ugu samayn kartaa qoraalka yarayna raacay halkan yimi great marka table-kaaga sida aad doontid ayaad ka samayn kartaa bal isku soo day inaad image soo geliso haddaad doontid oo halkan oo kale aad tirahdid meel maran ama meel kale oo kale aad tirahdid image tag aad u samaysay image tira source la mid noqdo waxaa dhihi jiray logo safe ayaan leenahay webs wakaa wuu soo galay halka ayuu soo galay weliba woodiskiisa iyo heightkiisa ayaan leenahay woodiskiisa hala noqdo 100 baan dhahaynaa pixel heightkiisuna hala noqdo 100 pixel waa cabirka css ama html ayaa isticmaala marka wakaa wuu yaraaday sidaa ujeedaa sidoo kale image-kan hadduu folder kaga jiro oo folder la dhaho tusaale ahaan sawirada oo aan gelino sawirkan la dhaho logo control x dhe xaggan geli image-ki kusoo bixi maayo laakiin markaad doonaysa inaad sidan oo kale ugu soo dirtid waxaa isticmaalaysaa waxa la dhaho folderka ku jiro la dhaho sawirada ayaad kabacdina slash logo ayaad dhahaysaa waa kaa uu soo baxay aad iyo aad ayay mahadsantihiin wax badan ayaad ka bedeli kartaa wax badan ayaad kusoo dari kartaa
waxaan ku leeyahay hambalyo.